Assalaamu calaykum asxaabta dhammaan meel walbo aad joogtaanba waan idin salaamay. Ku soo dhawaada sheeko kale oo aad u xiiso badan oo aan ka soo qaadanayno buuggan Isleeg Isiseegan ee uu qoray Ismaaciil Cabdulaahi Ubax. Waana sheekada Najax iyo Najax. Sheekadan waxay ku saabsan tahay waa saddex gabdhood oo saaxiibo ah, aad isu jecel oo jaamacadda iminka uun soo dhameeyey. Saddexdaas gabdhood laba ka mid ah ayaa wiilka uu madaxweynaha dhalay jacayl xad dhaaf u qaadaya, laakiinse isagu yaanan ka hor dhicin ee ku soo dhawaada qaybta koowaad ee sheekada Najax. Waxayna ku bilaabanaysaa sidan. Najax 6 sano ayaa u raacda 20-ka, qurux ayaa u raacda maskaxda, leer diiran ayaa u raacda qorraxda. Magaceedu waa Najax. Madaxa mara cawl ah ayaa si khafiif ah ugu dul goglan, hoos markay u soo dhaadhacdo ayay dhex gashaa midabka guduudka ah ee diraca garbaheeda hoos uga daadega. Jooggeeda ayaa salka ku haya cagaheeda oo ku dhex jira kabo dhirirkeeda wax ku daray. Marada ay ku dhex jirto ayaa ka noqota gumadka dushiisa. Hoos waxaa ka soo rogan gacmo korkooda jug laga dhowray. Faraha hore ee gacanteeda bidix ayaa laabta ka garaacaya telefoon aan indhaheeda oo wada furnayn ay hoos u dhowrayaan. Sahra iyo Hoodo oo jidka ku soo jira ayay waxay ku sugaysaa gurigeeda hortiisa. Shinni iyada iyo ubaxa kala garan weyday ayaa korkeeda ku dheelaysa. Balanbaalis aan u fahmay inay iyada daawanayso ayaa laan aan durugsanayn soo fadhida. Baabuurkii ay sugaysay ayaa meel aan fogeyn ka soo baxay. Waa kan farxad ay xuub caaro ku qarinaysay ayaa meel dhow ka soo booday. Dhigo aan soo gaarin meel ay wax ka maqlaan ayay dhawaaq ka horgeysay oo la hadashay. Najax waxay tiri naayadahee oo 5 daqiiqo ma sidan baa naabalnaagahan eega. Baabuurkii agteeda ayuu istaagay. Qosolkii dhinaceeda ayuu ka socdaa. Kursiga intii aysan si fiican u fadhiisan ayay la soo booday. Walaalayaalow bal heestan iga gaabiya yuusan aabbi maqline. Sahra oo aan hadalka meel fog ka doonin ayaa ugu jawaabtay oo aabbaha 10 subaxnimo wuxuu guriga ka qabanayaa. Najax oo aan isdhibin ayaa ku dharbaxday. Aabbahay ma sida aabbaha ayuu meelaha wareegaa, reerkiisa ayuu la joogaaye. Hoodo oo meel kale ku maqan ayaa ku darsatay. Walaalay wallaahi heestan waa igu socotaaye. Qosol ayay midba in qariiratay. Dhankii jaamacadda ayay u jeesadeen si ay ardayda kale farxad ula qaybsadaan. Inta aan dhanka hoteelka loo kicin ka hor 3 saacadood ayaa uga hartay waqtigii qalinjibintooda. 5 sano oo qosol iyo baroorba lahaa ayaa maanta ku eg. In ka badan oo farxad iyo murugaba leh ayaa maanta u bilaabanaya. Waa gashaantiyaal haddii aysan guur diyaar u ahayn maanta waa u diyaar. Marmarsiyo kasta oo ay la imaan jireen maanta ayaa ugu dambaysa. Balse hala guursado maxumee yaa guursanaya. Hoodo ayaa kaftan bilowday. Waxay tiri naaheedhaha raggii xagee ka dhaceen. Sahra soo booday oo waxay tiri ragga maxaad ku falaysaa? Adigu horta iska aamus. Maxaad wiilasha ku neceb tahay? Sahra soo booday oo tiri akhas calayk oo maxaa rag lagu falayaa? Hoodo ayaa soo booday oo tiri tan waa nin. Najax ayaa waxay u raacisay weliba waa nin dabeecad xun. Maxaad ragga ku nacday oo ay kugu sameeyeen? Sahra tiri idinku maxaad guurka kaga degdegaysaan horta? Anigu haddii aan guursadana 2 carruur uun ayaan dhalayaa. Hooda soo booday oo tiri 10 ayaan kugu duceeyey. Najax ayaa waxay tiri haa ilaahay idinkii. Sahra waxay ku jawaabtay idinku isku baxa. Hoodo ayaa waxay tiri amiin. Habaar bay moodaysaa carruurta. Ilaahayow 9 duuf leh ayaan ku weydiistay. Najax ayaa waxay tiri naadiyahaaye adna duufka ka reeb. Hoodaa tiri ilaahayow duuf iyo dhareerba isugu dar. Sahra waxay tiri alla naagtu duca xumaa. Ilaahayow intaba sii. Najax ayaa waxay tiri naaheedha Hoodo adigaa mid la sheekaystee ee kii ka waran. Sahra soo booday oo tiri maya waa 3. Hoodaa tiri haaye 2 kale waa dhareerlayaal. Mid uun ayaa wax kala garanaya. Kaasna waa kii sheeko ila yimid. Najax ayaa waxay tiri sheeko see ah. Hoodo ayaa waxay tiri aniga oo suuqa joogo ayaa waxaan ku dhahay isoo doon. Kuye isug aan furaha gaariga hooyo ka soo qaatee. Alla hoognay uun ayaan idhi war hooyadaa miyaa furaha gaariga ku haysa? Markii aan weydiiyey kuye haa alla afaadkaa dee 3 cisho ma aanan la hadlin. Kolley hoteelka ayaan ku arki doonaaye. Sahra waxay tiri weligeed ayay handikaabka la sheekaysan jirtay. Mid masaasad jaqana waad la hadli doontaa adigu. Hoodaa waxay tiri bisinka kaas adiga hoostaada ma dhaafo. Walaalayaalow kaas waa igu carruuroobee ee iga daaye ee adigu maxaad haysaa Najaxey? Najax ayaa waxay tiri haddii aan ku idhaahdo mid aan ka helaba ma arag miyaad igala yaabaysaa? Hoodaa waxay tiri oo waayhee maxaad raadinaysaa? Sahra soo booday oo tiri Justin Bieber. Najax ayaa waxay tiri wallaahi walaalay waxaasi waa iska kaftane laakiinse weli mid aan ka helaba ma arag. Iminka hablo wax bartay ayaanu nahay. Waa in aynaan cid kasta la hadlin dee. Naayadahee mise waa beentay.
hoodo ayaa waxay tidhi maya ee waa sidaas wallaahi ilaahayow kuwii jannada ka soo xagaabaxayna tus sahra waxay tidhi maye kuwa hooyadood faraqa haysta dhismihii jaamacadda ayaa durbadiiba la soo gaaray halkaas ayay sheekadii kasii wateen intii laga gaarayay wakhtigii xafladda ee hoteelka. waa xaflad midabo badan dad magacyo badan iyo farxad noocyo badan leh intuba iyaga ay diyaar ugu yihiin meel aan aad uga durugsanayn barta ay hadda joogaan oo ah jaamacadda. maanta waa maalintii laga meeran lahaa ama laga soo dhammaan lahaa daalkii 5tii sano ee ugu dambeysay. waa maalin ka mid ah maalmaha kooban oo ay dunidu ku leeyihiin ehelkii iyo asxaabtiiba way imaan doonaan inta maqanna caawa ayay shaashadaha ka daawan doonaan. madaxda dalka ayaa hadallo caajis badan ka jeedin doono marka mid laga reebo waa wiilka uu madaxweynaha dhalay ee la yidhaahdo najax oo sheekadu waa najax iyo najax lama hubo inuu imaanayo haddiise uu yimaado xiddiga madasha ayuu noqon doonaa. waa doob aan weli gursan iyo joog aan tuurid lahayn iyo maal aan is-aqoonin leh. qurbaha ayuu ku maqnaa dhowr sano waddankaanna aad loogama yaqaano. goortii xafladda ayay 2 saacadood dhaaftay qaybtii fasalkooda loogu talagalay ayay ku hagaageen iyaga oo 3 ka badan. wax yar kadibna aayado quraan ah ayaa yeeray khudbado dhaadheer ayaa xigay iyaguna sheeko ayay hoos u wadaagayaan. najax oo qosol ku maqan ayay dhegaheedu maqleen magaceeda oo ka yeeray 12 sameecadood ee goobta ku xiran. dhegaha ayay taagtay iyada oo qosolkii degdeg u hakisay. magaca in lala wadaagi karo ayay ilowday weliba inuu wiil la wadaagi karo ayay ilowday. waa wiilka madaxweynaha. waxaa la yidhi ku soo dhowow mikrofoonka mudane najax. indhaha ayay dhowr gidaar ka soo jartay oo ay dhowr meel fiirisay inta aysan muuqiisa haleelin ka hor. qoorta ayaa dhowr jeer kala baxday way aragtay daanka hoose ayaa hoos u dhacay. haddii ay qurux raadin jirtay kii ay ku rarneed ayay aragtaa. dhegaheeda ayaa sacabka dhacaya dhawaaqiisa iska xiray si ay indhaha u caawiyaan. qoorteeda ayaa la socotay tilaabadiisa isagoo u dhaqaaqay goobta hadalka. indhaha ayaa iloobay inay libiqsadaan. shanta dareen iyo 2 kale oo ay soo ergeysataba isaga ayay siisay. hoos ayay waxay u tiri dhibicdan malabka ah xaggay kasoo tiftiri. magaciisa ayaa kor loo yidhi jabaqda hoos loo dhigay. indhaha hoolka jooga labadiisa mooye inta kale isaga ayay hayaan. ma uusan sii nagaan markii uu kor u booday ma uusan hakan markii uu hore ka dhaqaaqay. huggiisa ama dharkiisa caddaanka iyo madowga ah ee kala sarreeya ayaa ka dhex muuqda dadka uu sii dhex marayo. 4 askari oo dhar cad ah ayuu sii dhaafay isaga oo isha ka salaamaya. najax oo aan ka dheerayn barta uu marayo ayaa rajaynaysay inuu dhankeeda soo eego. socodkiisa dhiiran ayuu sii watay. tallaabo kasta oo uu u qaado dhanka masraxa waxay ahayd mid uu qalbigeeda ugu dhowaanayo. dusha ama kor ayay ka yeelatay dhankeeda inuu soo socdo ayay laabta gashatay. way iska dhoola caddaysay. indhaha ayay ka dhex saartay meel aan ka durugsanayn. markii uu soo istaagay isoo eeg ayay hoos u lahayd. muuqiisa ayaa deeqay. magaca ayaa u raacay inuu ina madaxweyne yahay. iyada cabsi kuma hayso. leyr beerkeeda lushay ayaa si filanwaa ah ugu dhuumatay. jirkeedii ay iyadu lahayd ayaa maamulkiisii lagala wareegay. xubnihii ayaa dibcay. lafaha ayaa dareeray. naqas ayaa isku taagay. iyada oo aan waxba cunin ayay mirgatay. codkii ka soo yeeray dhuumihiisa hadalka ayaa kiciyey. xaadda dhegaheeda dushooda huruday inuu iyada u sheekaynayo ayay ka dhigatay. in ay ka gurto ayay damacday. hoos ayay u guuxday iyada oo leh haye waa runtaa intaas aad tiriba waa kugu raacay ayay isku raacisay markii uu salaanta dhameeyey. hoodo oo ku xigtay ayaa dareen qaadatay. cod dheer ayay riyada kaga kicisay. waxay tidhi hoognay naabal afka uun isku qabo bisinka iyo salliga. sahra oo sii jeeday ayaa soo jeesatay. haye maxaa helay ayay tidhi. hoodaa tidhi naadeesootay inanka cuntay. najax ayaa waxay ku jawaabtay ina adeerayaal waad ansha xuntihiine ee dadka dhegaysta markay hadlayaanoo naga aamusa. sahra oo aan weli fahmin waxa socdo ayaa su'aalaheedii sii wadatay. waxay tidhi ma aanan fahmin calaashaan mayarkan kuusan ayay daawanaysaa. hoodaa waxay tidhi bisinka ilaan waxba ma arkaynin wayba ka dhex baxday midkaan yar. sahra ayaa waxay tidhi allayaa ii qosla midkaani waa abuubeed. ma abuubeed ayay rabtaa naayaysan kugu jebin dheh ukuntaas yar. najax waxay dhex jiiftaa bustaan uu codkoodu si gaaban u soo gaarayo. miro uu isagu soo guray ayay muudsanaysaa. goor uu dayaxu buuxo webi malaba ayay farta ku dhuuqaysaa isaga oo aan dhinaceeda ka dheerayn.
haddii qofka dareen lagu kaxaysan karo maanta inanka way la fogaatay dhul biyo iyo baadba leh ayay kaligood degeen nasiib darase kursigii hoteelka ayay weli fadhidaa isaguna iyadaba aqoon uma laha hadal dheer ayuu soo afjaray riyo dheer ayay ka toostay inuu dhammeeyey ayay u qaadan weyday 20 daqiiqo oo uu hadlayay ayaa 20 ilbiriqsi agteeda ka ahaa sahra ayaa soo booday waxay tidhi gabarey inanta yarka kuusan sii eegaysay yarkii 20 jeer ku salaami jiray ayaa halkaas fadhiya hoodo ayaa waxay tidhi alla walaal waa maskiinkii yaraa naadee inan kala hadal najaxay iska daa midkan kunka naagood kala dooranaaye najax ayaa waxay tidhi kun naagood kaas waa kuma naa kolley waa la ilaaliyaaye ee naaga looma ogola sahra ayaa waxay tidhi waayahee markaas maxaad isku daalinaysaa najax ayaa waxay tidhi oo anigu ma isagaan rabaa anigu hadalkiisa uun ayaan dhegaysanayay sahra ayaa waxay tidhi wallaahi carbal muxuu yidhi sheeg najax ayaa waxay tidhi naa naga tag hoodaa waxay tidhi naa soo kaca innagaa ku xignee sahra waxay tidhi allah isaga ayaa shahaadada na guddoonsiinaya alla yarka kuusanow lagu jeclaa najax ayaa waxay tidhi naa naga aamus belo ku jeclaatee najax afkeedu hadal ayuu leeyahay qalbigeeduna mid kale jirkeeda ayaa kala shaqaynaya wadnaha ayaa fiiraha hoosta kasoo tumaya magacyadii fasalkooda ayaa la bilaabay hoodo ayaa kacday lugaha ayay isla dhacday gacmaha ayaa aayar raxleeyey hoodo ayaa soo noqotay iyada oo hoos u leh naa sahraay waa runtaaye waxaan yadhi gacan kuusana najax dhidid aysan filayn ayaa sacbadeeda kasoo maaxday magaceedii ayay maqashay wadnihii ayaa afka yimid cagaha ayaa dhulka loogu aasay salka ayaa kursiga ku dhegay iyada oo aanba kicin ayaa waxay damacday inay tillaabsato xoogaa ayay rafatay ilmo yar oo dembi galay ama qalad galay sidiisa ay u hoganaysaa ama u baqaysaa cabsi ayaa madax martay way calool adeegtay ilaan si kale ayaan jirine bartaas ayuu soo taagan yahay si fudud ayuu afkiisa u furan yahay qofkan magaciisa wadata ayuu sugayaa qofkan magaceeda wata ayay soo gaartay gacan qoyan ayay si waafi ugu dabooshay tiisa qoyaan ayay ugu qabaysay shaaribaha ayay dhidid waaweyn ka keentay way foorarsatay way toostay hambalyo allah kugu anfaco ayaa dhankiisa kasoo yeertay wax cod u eg naqasna u badan oo xiiqsan ayaa dhankeeda ka yimid 3 jeer ayay ku figaartay socodkii ayaa ka dhumay kursigeedii ayay iyada oo daalan kusoo noqotay hareeraha waxaa ka fadhiya labo maryaha afka ku qariyay qosolna hoos ula gariiraya way fadhiisatay dhowr ilbiriqsi oo kale haddii ay sii taagnaan lahayd waaba suuxi lahayd naqaska ayay soo kala gurtay qosol gariirkii ayay sii wateen midna hadal ma uusan odhan ilaa bannaanka looga soo baxay markii bannaanka la yimid ayay sahra waxay tidhi naa najaxay huuno ma nabad qabtaa hoodo ayaa waxay tidhi wixii ku helay ayaan la yaabay wallaahi najaxay anigaba markaan suqaar arko waan iska ilmeeyaa sahra waxay tidhi adigu suqaar jecelay ha hadlayna sug naa najaxay maad hadashid bisinka mahaantii hadalka ayaa kaa dhuntay najax ayaa waxay tidhi iyada oo is adkaynaysaa naayaadahe maxaad rabtaan camal la'aan ayaa idin haysa wallaahi runta ayay dafiraysaa waa najaxe booraan ama god af weyn ayay farku owd isleedahay sidii ayay ahaatay si kale ayay ahaatay gelinkii dambe oo dhan dhoof ayay ku maqnayd kolba way fogaataa haddana way timaadaa riyadeedii oo dhan rajadeedii oo dhan najax ayaa dhex taagan isaga ayay dhex seexisay qalbigeeda oo idil maskaxdeeda oo dhan isaga ayay u xiran tahay way u qaadan la'dahay sidaan uu ku yeeshay rag hore ayaa ku xiiqay inay salaanta xitaa ka qaado oo ku daalay isna aayar ayay maantaba hantidiisa noqotay hadal wuxuu ka joogaa sidii ay u hanan lahayd hadal ayay waxay kusoo goysay waa inaan haleelaa dhammaantii afduubtaa dareenkiisa yeeshaa habeenkii la'aantay hurdo seexan waayaa najax waa la taabtay baaqigii ayaantaas farxaddeedii oo dhan isaga ayaa barqaatay dareenkii ay la timid waa uu ka gedisnaa kii ay kala tagtay goobta wejigeeda oo dhan madow ayaa kor saarnaa dhoof ayay ku maqan tahay maalin dheer kadib gurigoodii ayay timid maryihii ay saakay oogadeeda saartay ayay kala huleeleen oo iska tuurtay durbadiiba waa fiidkii tiifiga fadhiga yaalla dhinaciisa ayay aaday baahideedu waxay tahay muuqaalkii maanta dib u fiirsigiisa cunto miiska saarnayd ayay haf la soo tiri agteeda ayay ku wertay lugo aad u daalan xayeysiiska dhawaqa dheer ayay indhaheedu hayaan weliba ujeedda la'aan intay gacanteedu ka dhex shaqaynayso saxanka iyo afkeeda cod aan midka tiifiga ahayn ayaa dhegaheeda soo gaaray waa codka hooyadeed oo ay weheliso jabaqda jiitamaysa oo ay samaynayso kabta dacaska ee cagta midig laga qadiyey ama kabla'aanta alladay siday wax u cunto nin ma ka taqaanaa naa waqtigan xageed ka timid meelna hooyadee waan iska caweynaynay ayay tiri najax hooyo weli waa fiid
oo hadda waayihii masaqda dhexe ayaad imaan lahayd cagaha kuraasyada iga qaado waa ku sidee hooyo maxaa kugu dhacay hooyo wallaahi waan soo daalo waan isku kala bixinayo oo maxaad ku soo daashay markaa maanta oo dhan waad wareegayseen dee adiga oo dhan ayaan ku akhrinayaa suuraaf yahay haa waan iska alla hoognayey waxaa la odhanayaa dibjirad ayay dhashay ayay hadalkii kaga dhex gashay hooyo sugdee waxaa soo gelaya barnaamijkii maantae makii meesha aad joogtay laga soo duubay haa ayay tidhi najax ba'nay waadba fadhidee maxaad ka daawanaysaa hooyo sug waa uu soo galay waa kan naabal cibaaradan eega bal waayihii naga yara naaqusi codkiisa ninkan codka weynna muxuu ahaa barnaamij socon doono 2 saacadood ayay 20 daqiiqo ku leedahay ayay tidhi hooyadii marka uu in yar socdoba hooyadeed ayaa hadlaysa naakanna muxuu ahaa soo adiga halkaas fadhiya hadal badanidaa nagnagtaas uu nahay adigu meesha aad joogtaba bal habluhu way xishoodaane adigu maxaa aamuska kuu diiday najax uma jeedo hadalladaas hooyadeed saacad ayaa tagtay welina ninkii ay sugaysay lama hayo way ishayn kari weeday ish najax waxay tidhi soomaalidanna hadal badni ayaan ku nacay bal mow soo koobo odaygan xun ee dacayda dheer hooyadeed ayaa waxay tidhi nayaahe naa maxaad wasiirka ku gashay oo aad ku cayday dee inaga beddel ee inoogey musalsalka haddii aadan doonayn hadalkooda waa loo yeeray kii ay sugaysay soo dhowow mudane najax kor ayay u boodday cagihii ayay dhulka dhigtay saxan miran oo ay dhabteeda ku ilowday ayaa meel halkaas ah ku faniinay markii ay istaagtay horena waa ka fadhiisatay hooyadeed ayaa yaabtay oo dhankeeda soo eegtay waa ka aamustay najax ayaa indhaha ka dhex saartay muraayadda ay daawanayso socodkiisii ay saacado ka hor u soo joogtay ayay dib u daawatay waxay tidhi waa kan kii naanaabka ahaa iyada oo aan is ogeyn ayay intaas ku dhawaaqday hooyadeed ayaa mar kale waxay tidhi naakanna maxaad ku cuntay jawaab ayay u heshay waxay tidhi hooyo nacas ayuu egyahay nayaahe waa fariid ayaa la yidhi waaba nin yar oo kaalay arag ah sida uu u shaqaysto oo uu aabbihii u garab joogo waad yaabaysaa haddana way aamustay oo ay ku faraxday ereyada wanaagsan oo hooyadeed ka soo yeedhay hadalkiisii ayuu bilowday riyadeedii ayay gashay mar kale alla weliba waa hadalyaqaan bal sida uu hadlaayo day waaba aabbihii oo bartaas taagan hooyo yara iga aamus biliis ayay hoos ka leedahay ma rabto in laga qalindaaro ama laga qaso dunideedan xuubka cara ka dhisan mar kasta oo ay sii dhegaysato waxaa ku kordhaya rabitaanka ay rabto inay kaaga dhawaato badweyn najax ah ayay dhex muquuratay roob najax ah ayaa u da'ay doog najax ah waa dhammaystay kaamiradiina bartaas ayaa lagu jaray si loogu gudbo qofka xiga boolshiid ayay hoos u tiri hadalka ma aysan badin markii ay dhanka qolka jiifka u soo tahriibtay sariirteedii oo aad mooddo inay 10 sano ka maqnayd ayay isku dul turtay sariirtuna laabteeda ayay u furtay fikirkeedii maanta ee ahaa waa inaan haleelaa ayaa maskaxdeeda sidii cajaladii ugu soo noqnoqonaya wuxuu marag ayuu ka wen yahay horta ayay isweydiisay diimaya ayay markiiba meel ololaysa ku baktiisay haddii aanan gacanta ku soo dhigin najax leema yidhaahdo way ku seexatay way ku soo toostay jaamacad lagu kalaho ma jirto wax saka weyn ayaa jira dhankii hoodo iyo sahra ayay u jarmaaday ama aaday waa 3 markay isku yimaadaan dheeri kasta karin kara shir heer qaran ah ayay yeesheen arrintii ayay u soo bandhigtay waxay tidhi xaaladdu iima fiicna sahra ayaa markiiba waxay tidhi ma anigan garan in kuusow la jeclaanayo hoodo ayaa waxay tidhi naayarku subag ilaahay ayuu ahaa ee iska daa ha jeclaatee wixii dacaayad ah heshiis ayay ku yihiin wixii soo kordhana inay iska caawiyaan oo ay isla xalliyaan waajib ayay u arkaan hawshii ayay gudagaleen su'aalo ayaa la isweydiiyey ninkan najax ah ee madaxweynuhu uu dhalay sidee lagu heli karaa asxaabtiisu waayo muxuu xiiseeyaa shaqadiisu maxay tahay ma dhanka shaqada ayaan ka soo galnaa mise dhanka asxaabta mise labadaba intee in la eg ayaa loo dhowaan karaa intaysan ciidankiisu qoorta kaa jibin hoodo oo looga dambeeyo falanqaynta iyo dejinta qorshayaasha ayaa dhankeeda lasoo eegay durbadiiba su'aal muhiim ah ayay ka jawaabtay hoodo ayaa waxay tidhi ninkan waxaa ilaah yar u haysata tii cambardheer ahayd najax ayaa waxay tidhi teeh hoodo ayaa waxay tidhi naatii ookiyaalaha waaweyn xirnayd miyaadan garanayn ee aan berigii isdagaalnay taas xun miyaadan garanayn sahraa soo booday oo tidhi alla haa
naawatii caafimaadka dhigan jirtay ee habeenkiina arooska u soo xiratay gogorada basaliga ah iyada oo dirac jaala xiran. Najax ayaa waxay tiri allaha waa shirqadii dheerayd. Ha waan gartay. Haye hoodo ayaa waxay tiri naayadahe aniga dhageysta naagtaas ma jeceli laakiinse waan soo basaasayaa waan kaaga dhawaanayaa iyada ayaan waxaan oo dhanna ka soo ogaanayaa. Sahra ayaa waxay tiri aniga horta waxaan ogahay inuusan ninkan dalka wax badan sii joogeen. Alla sug ninka xarumaha agoomaha ayuu caawiyaa sawti barnaamijyo badan laga soo dayn jiray. Najax ayaa waxay tiri naayile ninka hortay ayaad rabtay anigu maba aqoonine. Sahra soo booday oo tiri naaya fudkan yar ee kuusan anigu waxba kuma falaaye i dhageyso ninku waxaas ayuu ka shaqeeyaa. Hoodo ayaa waxay tiri aniga gartay qorshihii adduunka ayaanu dhigaynaa. Najax ayaa waxay tiri ku soco. Hoodo waxay tiri urur aan jirin ayaan samaysanaynaa waa urur agoomaha caawiya. Haddii aan rabno mid caalami ah ayaan oranaynaa waa qaybtiisii dalka oo annaga ayaa mas'uul ka ah. Sahra ayaa waxay tiri haye kadibna. Hoodo ayaa waxay tiri alla dhawahana tani dee markaa isku suuq ayaanu noqonaynaa ayay tiri. Hoodo waxay tiri xaflad aan jirin ayaan qabanqaabinaynaa oo aan u bixinaynaa u gargaar agoonta. Najax oo war ku socdo ayaa waxay tiri haye iwad. Hoodo ayaa waxay tiri kadibna waan u yeeraynaa oo martiqaadka ayaan u diraynaa. Kuusow haddii aan ku hor keeno markaas ka waran adiga oo weliba guddoomiyihii ururka ah. Najax ayaa waxay tiri naahaye haddii aan ka sifirno ka warrama. Sahra ayaa waxay tiri araghe waa saacaddii ay dabadu gariiri jirtay. Hoodo ayaa waxay tiri naa waxaas ka bax ee adigu sida aan ku dhaho yeel. Najax werwer ayaa galay in inanka madaxweynaha la shirqoolo ma aysan rabin balse wax kasta oo isaga u soo dhaweynaya diyaar ayay u tahay. Maxaa qaldami kara ayay hoos isku weydiisay. Maskaxdeeda wax walba waxay ugu jawaabtay waxba ma rabto inay walaacdo iminka ma doonayso inay khilaafto iminka hoodo oo ay wax badan uga soo joogtay. Talo waxay ku soo goysay inay adeecdo hoodo. Dhanka kalena hoodo hawshii way bilowday. Inantii cambar dheer ahayd ayay xog ka keentay sidii ay ogsooneyd ayaa loo xaqiijiyey. Najax waa nin maatada ama agoomaha ilaaliya. Qof kasta oo ka saacida dadka waa uu ka jecel yahay. Taleefoonka ayaa soo yeeray. Cod aan meel fog gaarayn ayay halow ugu dhawaaqday. Naahaye miyaad hurdaysaa? Waa codkii hoodo. Maya ee hadda ayaan seexanayay. Maxaa saacaddan ku wada ayay tiri Najax. Naabal naagtan eega oo aan ninka u salaxayno ee sidaas noola hadlaysa. Bisinka hay cunin ayay tiri Najax bal iska raali ahaawe ii waran. Hoodo waxay tiri aniga si fiican ii dhegeyso. Facebookkaaga fur fariinta ku jirto ee aan kuu soo diray soo qaado oo qoraalkaas koobi soo dheh wajhadaadana ama Facebookkaaga ku soo boost garay oo soo dhig. Waxay tiri bal sug aan eegaye ma nebiga ku sallibaa. Hoodo waxay tiri naamaye fur inantu hadal badana adduunyo ayay tiri Najax maanta ayaa Facebookkaygiina layla maamulayaa. Sug bal aan akhriye waxa aad ii soo dirtay. Alla naa sabab waxaan ugu soo qorayaa. Naaheedhe kuusoo ma rabtaa ayay tiri hoodo. Haddii waan rabaa laakiinse maxay tahay beentan. Markaad intaas samayso gurigii Sahro aan isugu imaadno qolkii dambe ee washmaanka. Naadeehaaye waayahay way dhigtay taleefoonkii. Qadar daqiiqada ah kadib wajhada ama Facebookka Najax waxaa laga akhristay ii soo duceeya Nairobi ayaan safar shaqo ugu baxayaa. Najax oo labiskeeda muddo ka howlnaan jirtay maanta dhaqsi waata bannaan ku aaday. Saacad aan wada buuxin waatan goobtii ku gaartay. Qol yar oo laga guuray gidaar daah ku xirnaa iyo wax yar oo san ku diiday ayuu soo martiday. Waa qolkii waardiyaha. Indhaheeduse maanta wax kale ayay arkayaan. Daahaas korkiisa warqad ayaa ku dheggan. Orphanage Association ayaa far waaweyn lagula qoray. Waxba waa ay fahmi weyday. Wax yar uun horteeda loox yar ayaa la istaajiyey oo lagu dahaaray ama lagu daboolay maryo si quman u sharaxan oo makarafoon dul yaallo. Waxba waa ay garan weyday. Ookiyaalo kuwii akhriska waa taas loo suray. Sahra oo halkan taagan waa taas u tilmaamtay bartii ay istaagi lahayd. Hoodo ayaa ku tiri naabal halkaas istaag waa yartaadan jacayl ku hayo. Qosol ayaa la isku daray. Halkii ayay kor istaagtay. Makarafoonka qabso ayaa lagu yiri. Dhakab ayay siisay. Naa Sahray bal sawir. Sahro ayaa dhawda ka saartay. Xoogaa tilmaam ahna waata kor u qaaday. Naasida tabliiqiyiinta farta sidaas dheh oo makarafoonka iska yara fogay. Bahalka miyaad ku cadaysanaysaa? Way ku soo dhaweysay si aanba loo arkin. Qolka intiisa kale dhabarkeeda warqadii weyneed ayaa ka muuqata. Intaas ayaa la sameeyey. Dharkii ayaa laga saaray oo ay sawirada ku gelaysay. Kuwa kale ayaa loo xiray. Bannaanka ayaa loola baxay. In kale ayaa laga qaaday. 2 saacadood kadib arrintii way soo dhammaatay. Hadalse weli waa uu harsan yahay. Hoodo ayaa waxay tiri kaalay halkan ii soo fadhiiso. 2 maalmood ee soo socda
gurigii ayeeyada ee bilaa internetka ahaa ayaad haatan tegaysaa. najax ayaa waxay tidhi naa maxaad leedahay anigii dhegayso sahru ayaa ku qaadaysa hadda. sidii ayaa la yeelay. facebookna waa laga mamnuucay. hoodo iyo sahra ayaa shaqadooda bilowday. cawayskii markii ay ahayd ayay soo geliyeen sawirradii ay ku wada jireen iyaga oo uu soo raaciyey ama ku soo dul qoray safar khayr qabo najax, shaqo khayr qabta insha allah, I will miss you. subaxii dambana iyada ayay la hadleen. waxay yidhaahdeen naa sawirradaas aan kuu soo dirnay qaybtooda koowaad soo geli, waxaadna ku dul qortaa oo aad raacisaa maasha allah, si wacan ayuu noogu socdaa shirku. intaas wixii ka dambeeyana isaga bax facebooka. najax oo dawaaqsan balse aad u ogsoon in asxaabteedii wacnaa wanaag uun ay la rabaan ayaa yeeshay sidaa. maalintii xigtayna sawirrada qaybtoodii labaad oo ay dharka la xirnayd ayay wajhadeeda ku soo wartay. dadku waxay leeyihiin hambalyo maasha allah, huuno najax keliya ayay ku khafiifeen. sahra iyo hoodo macluumaad wixii ay najax kari weydo ayay soo qubayaan. dadkii waa loo sheegay in guddoomiye loo doortay, in afrikaan badan oo u tartamaya jagadaas kaligeed ay ka qaaday. mashxarad ayaa isqabsatay. dadkii waa u riyaaqeen balse waxaysan ogeyn in magaaladan dhinac uun ay ka joogto. caawa waa habeenkii ay birrito imaan lahayd. qorshihii sidiisii ayay hoodo usii samaysay. fiidkii ayay soo wacday, iyadana waa ay ka jawaabtay. waxay tidhi haddaad og tahay facebookii waxa ka socdo ayeeyada ma aadan ag jiifteen. naa walaalayaalow ilaahay ka cabsada oo maxaad samayseen. naa xidig ayaan kaa dhignee adigu sideeda iftiin. alla naa walaalay hoodoy weligaaba ma sidaan ayaad dhakooyinka ama qorshayaasha u degi jirtay. wallaahi waan kaa yaabay. lug iyo gacan ayaan kuu taagay. 5 lugood haddaan lahaan lahaa waan kuu taagi lahaa. hoodo najax ay waxay ku tidhi bal anigay dhegayso, berrito waa soo degaysaa. diyaaradda kenya ka imaanayso waxay soo degaysaa 10 subaxnimo. haye 9:15 diyaar ahow. oo dabadeedna ayay tidhi najax dee airboorka ayaan ku geynaynaa. wuxuu badowsanaa bisinka aygu qayline miyaan dhoofaya haddana. naamaye waa soo degaysaa ayaa lagu yidhi. najax waxay tidhi sideen soo degayaa markaas. hoodo ayaa waxay tidhi ilmahani hadal badana naa hooyo ayaa ii yeeraysay, cashadii ayaan diyaarinayaaye ee berrito wakhtigaas aan kuu sheegay diyaar ahow. gaarigu waa indha cadde, afkoodu waa dhoola cadde, lebiskoodana kaalay arag. markii ay kusoo qulquleen gurigii ay najax joogtay oo kiyaalaha wejiga intiisa badan qariyey ayay iska rogeen. markii ay albaabka soo dhaafeen sal yar ayay ku fadhidaa. markii ay kusoo baxeen waa najax ayeeyadeed. sahra oo waayeelka ka hesha ayaa si kalgacal leh salaan ugu soo turtay. waxay tidhi ayee macan ii warran. wax jawaaba ayay weyday. hoodo ayaa hoos ugu celisay naadii islaantu waa xagga dhegahee kor ugu qaad codka. sahra ayaa waxay tidhi ayeeyo iska warran. ayeeyo ayaa waxay tidhi naa maxaad la qaylinaysaa. carruurta hay naga kicine naga aamus. hoodo ayaa waxay tidhi alla hoognay naa maskiintu sawta ka sii dartay. aaway carruurtu. hadalka ayay sii waday ilaa ay najax ka soo baxday. najax ayaa waxay tidhi naayaadahee maantana ma ayeeyadii ayay idinka tustay. bal naagahan eega. tallaabada iyo codka ayaa la socday. gacmaha jaydalka ah ee ay sida macnaysan u walfinayso. noolo kasta oo goobta joogay ayaa wixii uu hayay dhigay si uu u daawado korkeeda. toobka garbaheeda kasoo bilaabma ayaa soo shuban kuna dhammaada kuraamaheeda, halkaas oo ay kabaha xargaha badan ka bilaabmaan. saddexdooda oo ay boqoradu ka tilmaaman tahay ayaa dhankii gegada diyaaradaha u dhaqaaqay. sahra ayaa waxay tidhi naaheedhe showkuusoo uun ayaad u baahnayd. hoodo ayaa tidhi naa ma aragtay horta inantu waaba sii dhalaalaysaa uun. sahra ayaa waxay tidhi balaayadan kuusan haddii uu ku helo waaba ciidayaa. najax ayaa waxay tidhi naayaada iga aamusadee waan soo degayaaye. maxay ahaayeen kuwan aan weligoodna dhoofin. goobtii waa la yimid. baabuurkii ayaa meel halkaas ah oo fog la dhigay. najax ayaa la yaabtay sababta baabuurka loo takooray. waxay tidhi naa walaalayaalow maxaad baakinka u dhigi weydeen gaariga. waxba ma oga. cagaha ayaa dhulka la saaray. shandad buuran oo xagga dambe saarnayd ayaa gacanta loo geliyey. hoodo ayaa dhowr taleefan wacday. wiil wax fahamsan oo lebiskii shaqaalaha xiran ayaa u yimid. najax ayuu la haday. albaab yar oo dhinac ah ayuu ka geliyey. gudaha ayuu dhex istaajiyey. wuxuu ku yidhi bartaan fadhiiso. markaad aragto in diyaaradda labaad ay soo fadhiisato dadka sii baxaya un raac.
waa uu ka dhaqaaqay naxdin sidii ayay yeeshay ilaan si kale ma taqaanee diyaaraddii koowaad ay quraarada ama miraayadda ka dhex aragtay teedii inaysan ahayn way ogaatay saacad wax dhiman kadib way soo caga dhigatay naqas ayaa kasoo booday ka waran haddii ay diyaaraddaasi hawada ku burburi lahayd labadii waalwaalnaa kolley wax dhinta iska dhig ayay odhan lahaayeen way sugtay intii ay dadku kasoo dhammaanayeen baaritaanada kala duwan oo ay marayaan muddo kadibna qof hadda soo degay uun ayay noqotay shandad ayay jiidanaysay bannaanka ayay madaxa iyo cagaha usoo wada saartay leyrta wejigeeda si fudud u dharbaaxaysa waxaa u xigay dhawaaqa dhanka bidix kaga imaanaya waa laba cod oo ay si fiican u taqaano iyo sagaal kale oo aysan garanayn way jaleecday way ku figaartay qosol gariir ayay wadna garaac ku darsatay ubaxyo kun nooc ah ayaa lagula soo orday qoorta ayaa dhowr kale loo suray waaba asxaab kale oo aysan si fiican isku aqoonin way u qaadan weyday soo dhoweyn fiican ayaa loo sameeyey sahra iyo hoodo ayaa garwadeyn ka ah iyaga ayaana kala diray markii ay arkeen in sawirro ku filan la qaaday najax oo hambalyo iyo dhunkasho lagu dawaqiyey ayaa baabuurkii la fogeeyey dhex fadhiisatay su'aalo badan oo ay jawaabo u rabto ayay soo kala horraysiisay horta heedhaha maxayda ka qaldan qofka soo wax looma sheego maxay ahaayeen dadkaani sahra ayaa waxay tidhi naaheedhe waa dad ku soo dhoweynayay hoodo ayaa waxay tidhi naabal u kaadi aan u balbalaariye waad garanaysaa cibaado afdhowr soo maaha najax ayaa waxay tidhi dee waa tii yareyd ee maxaa la odhan jiray qofta hoodo ayaa waxay tidhi idhegayso maxay can ku tahay najax ayaa waxay tidhi dee kun wax hoodo ayaa waxay tidhi naagta wax kasta facebooka soo dhigta miyaysan ahayn xitaa markay ay suuliga gelayso najax ayaa waxay tidhi naabalaayada iga daayo waxayba ugu darnayd maalintii ay soo qortay aabbow hooyo iska daa innaa lilaah hoodo ayaa waxay tidhi cambaro dheerna waa garanaysaa dee najax ayaa waxay tidhi iyadu ninka ayay taqaanaa oo waan gartay hoodo ayaa waxay tidhi dhammaan naagahan meesha marayay waxay yihiin kuwa uga codka dheer facebooka midba wax gaara ayay caan ku tahay midna waa ay ka saman yihiin oo dad badan ayaa ku xihan sahra ayaa waxay tidhi dee waan adeegsanaynay uun naag weliba idaacad gaara ayay u dhigantaa tan dheerna kuusow ayay saaxiib la tahay markii ay boggeeda soo gelido sawirrada fudkii yaraa ayaa arki doona hoodo ayaa waxay tidhi allay lehe kaasi waa fud mise waa dhibic waa dhibice iska daa najax ayaa waxay tidhi danihiina haddaad ku mashquulshaan ka warrama hoodo ayaa waxay tidhi wallee tan waa lagu wen yahay naiga aamus wax jecel ayaan banacay keligood miyaysan dadku noolaan karin horta walle anigu nin ma raadsado sahra sidaas tidhi qorrax kulul ayay har iyo sharaab qabow isaga dhigeen sheeko aan dhammaanayna dabada ayaa la qabtay waa asxaab kala maqnayd iyo xaalkeed oo kale qosolka iyo sheekada aan la kala sugaynin taleefoonada oo kolba hoos loo eegayo iyo wakiilayaasha waaweyn ee miiska saarsaaran sahra ayaa kasoo jeesatay xantii oo tidhi naaheedhaha maxaa iminka inoo haray najax ayaa waxay tidhi dee horta anigu waan soo degay kow dhaha dadkii dalka sii joogayow idinku maxaad haysaan hoodo kaligeed ayay isla baxday way dhoofsan tahay sahra ayaa waxay tidhi dee iminka waa inaan xiriir la samaynaa kuusow najax ayaa waxay tidhi cambaro dheer ayaan u baahannahay markaa dee sahra ayaa waxay tidhi naataas hoodo ayaa ka adage oo ay hor orodaa markay la hadashee iyada ayaan wacaynaa ee ninkaa soo qabato najax ayaa waxay tidhi haadee dabadeedna aan aragno waxaa yar socodkiisa yaa maxaan dhahay sahra ayaa waxay tidhi balaayo kula socod xumaatay naa iga aamus haddaba hoodo ayaa soo toostay u kaadiya sahra ayaa waxay tidhi hee hoodo ayaa waxay tidhi xafiis ayaan u baahannahay dhulka ooman sida uusan biyaha u diidin ayay fikirka hoodo u oggolaataa tixgelin saayid ah ayay u haysaa walow ay saddexdoodu si siman walaalo u yihiin haddana hoodo ayaa iyada uga dhow sahra dabeecad ahaan ayay labadoodu isku fahmeen sahrana waa lug ka maqnayd oo iyaga dhammaystirta marka la rabo in najax fikir laga dhaadhiciyo sida in safar degdega loo baxo hoodo ayaa lasoo diraa iyada ayaa si gaar ah ugu sheegta najaxna ma diido care kasta iyada ayaa burburin karta qosolka najax ayaa hoodo ku xihan da ahaan way isaga dhow yihiin sahra malaha taas ayaa sababtay inay sidaas isugu dhowaadaan bartii ay fadhiyeen ayay ku ansixisay fikirkii su-aasha xigta ayaa noqotay xafiis sidee loo kiraynayaa sahra ayaa waxay tidhi oo heedhaha xafiiska halkan ka helaynaa najax ayaa waxay tidhi naa xafiis lama weynaaye ee lacag xaggee laga keenayaa dhaha hoodo ayaa waxay tidhi imisa ayuu noqon karaa tolow sahra ayaa waxay tidhi dee ugu yaraan waa $100 meelaha aad ka rabtana way ku xihan tahay hoodo waxay tidhi waxaan u baahannahay mid xaafadaheennana ka fog suuqana aan aad ugu dhoweyn najax waxay tidhi adigu waa inuusan 100 ka badan un sahra ayaa waxay tidhi naabal suga waxaa jira qol laba afla ah oo waddada kusoo jeeda najax ayaa waxay tidhi waddadee
sahra waxay tiri ii sheegdii halka uu ku yaalo macmacaanlihii hoodo ayaa waxay tiri kii dhareerka lahaa miya sahra ayaa waxay tiri naamaya kii suudka ka weyn xiran jiray najax ayaa waxay tiri ma maxamed soqoriya sahra ayaa intay qosashay waxay tiri haa kaas qolka ku dhegan miyaadan arkina qolkii farmashiga ahaan jiray dhawaaqa taleefoonka hoodo ayaa kala jaray hadal aan dhammaanin aamusa waa tiiye ayay soo tuurtay intaysan ka jawaabin ka hor halow xabiibtii maya ee ii warran naahuuno haa miyaan fadhiistayba adigana haye sahra iyo najax ayaa is eegay waa ay sii wadatay dee xabiibtii waa inaan soo dhammaysanaa ma ku soo doonaa dee hadhow miyaad waalan tahay dee soo iminka halkaas uun anigu kama adeegto ma aniga ayaa meel kalaba taga aniga kusoo doonaya qaaliyey haa haye meeqa saac huuna macaaney ii seexo waa runtaaye waa inoo hadhowbe haye way jartay taleefoonkii afar indhood oo miran ayay fallaarahooda dareentay taleefoonka inta aysan miiska saarin su'aalihii aan lagu dhawaaqin ayay ka jawaabtay dee waa tiiye cambaro dheer alla naaba'naye horta si fiican ma ula hadlay yaysan imaqline haa waa cambaro dheer sahra ayaa waxay tiri maxay rabtaa najax ayaa waxay tiri iyadana maxay doonaysaa hoodo ayaa waxay tiri kuteh make up ayaan soo iibsanayaaye miyaad raacaysaa akhas calayg horta siday maanta u marsanayd ma arkayseen waa naagta eyelinerka ilaa dhegta jiiday akhas sahra ayaa waxay tiri na adiguba ma dhaantide soco hoodo ayaa waxay tiri na anigu ma sideeda ayaan ku riyoodaa internetka ayaan ka daawadaa sida loo marsadee najax ayaa waxay tiri na waxaan ka baxee oo maxaa tiri markaa hoodo ayaa waxay tiri waa inaan mar dhow u tago ilaan dan ayaan ka leenahee sahra ayaa waxay tiri alla kuu soowow kugu xintay oo tif noqo ilaahay idinkii bal naagta uu na hoosgeeyey eega oo naheedhe gaariga aad ku doonayso yaa iska leh hoodo ayaa waxay tiri dee ma sideeda ayaan dhowr gaari leeyahay dee kaaga ayaan kaa kaxaysanayaa huuno najax ayaa waxay tiri maskiinsanaha markay wax rabto naa bal aniga gurigii hooyaday igeeya horta aan dharkan igu dhegan iska saaree magaalada ayay soo dhex qaadeen si ay haddana dhanka xaafadooda ugu arooraan qolkii ayay dusha ka soo eegeen way isla qaateen sahra ayaa warkiisa dooni doonta oo soo ogaan doonta xaalkiisa najaxna gurigeedii ayaa la keenay hoodo ayaa waxay tiri dee waa inoo sidaas anna aan naagtan ka dhex baxo sahrana qolkan warkiisa ha soo sugto adiguna facebookga dadka uun waad mahadsantihiin ha u dhaafin taleefoon ayaa inoo dhex ah ayaa lagu kala tegay najax oo soo boholyowday ayaa hooyadeed macaan dhabteeda barkatay jirkana maryo fudud huwisay xubin kasta oo jirkeeda ka mid ah ayaa dhaqaaqa joojisay indhaha oo si saa'id ah u furan ayaa hawada dhexe aragga u qaybiyey hooyadeed oo aan waxba ogeyn ayaa hoos u eegaysa inanteeda dareen ayay ka qaadatay waxbase ma aysan weydiin walow uu qorshuhu ilaa hadda u socdo si wacan haddana werwer ayaa ku jira way rabtaa inay hesho najax haddana habkan ay u marayso ayaa ah mid ay ku qasban tahay balse aysan samayseen maalmaha qaar waa ficil ka soo horjeeda shakhsiyaddeeda in ay lunsan tahay ayay dareemaysaa qaladkii iyo sixii ayaa meel wada fadhiistay isaga ayaana casuumay in aan qof jeclaado qaladkayga maaha ayay nafta ku sasabaysaa mar kasta oo ay fikirka ku dheeraato dareenka laabteeda fadhiya ayaa sii kordhaya culayska garbaheeda fuulaya ayaa farxad kala wata muddo yar markii ay jiiftaba naqas dhowr galaan ah ayay dib u nuugaysaa si ay haddana hore ugu soo tuurto wadnaha ayaa dubaaxinaya ma rabto inay ka fikirto haddii ay joojisana waxay dareemaysaa inay miran tahay jawi ku cusub baahi iyo dareen culus ayaa u bilowday inay bilowga uun tahay ma dareensana howlaheeda gaarka ah iyo shaqada guriga ayay isku mashquulinaysaa haddana waxay arkaysaa iyada oo daqiiqda ama bur ku darsanaysa shaaha qolkeeda ayay soo gashaa si ay shay uga soo qaadato laakiinse muddo dheer ayay dhex taagnaataa si ay u xasuusato shaygii ay soo doonatay yeermada ayay maqli weydaa weydiimaha ayay qalad kaga jawaabtaa goob keliya ayay taagnaan kartaa saacad go'an indhaha ayay libiqsiga ka iloobi kartaa in badan waa lagu duulay haddii uu dareenku tiix ahaa maanta waa mihigaan habeenkii dambe ayay damacday inay asxaabteedii ka war doonto maadaama ay soo wici waayeen hoodo ayay ku horaysay waa uu dhici waayey sahra ayay ku dambaysay waa uu dhacayaa halow ayay maqashay naa sahra bal warran bariido kadib ayay weydiisay naadtii hoodo ahayd waan waayey ee malaha dhibkaa ka dhacay walaalay intay saakay gaariga ii keentay oo ay furahana yareerka iigu dhiibtay aniga oo maqan ayay iska tagtay xitaa ima aysan soo wicin cajiib dee saaxiib cusub ayay heshay naagtu sow ma aragtid horta waa mid lacag haysatadii ilaan hoodo diinteedu waa lacage waxay u sheegtay in qolkii warkiisa loogu maqan yahay kadibna waan ismaqli doonaa ayay hadal kusoo gunaanadeen
maadaama ay iminka waxbarasho dheer ka soo baxday. Najax waxay dareentay inay u baahan tahay inay hooyadeed waqti la qaadato inta ay hoodo soo hadlayso. Qorshahaanna uu dhan u dhacayo, hooyo ayaan meel kasta u raacayaa. Wuxuu noqday go'aan ka mashquuliyey nin maskaxdeeda xoog ku haysta. 3 maalmood ayaa tegey, weli wax wara lagama hayo hoodo. Reerkoodii way la hadleen oo way ogyihiin inay nabad qabto. Sababta ay iyagu ula soo hadli weyday ayaa Najax ku noqotay xisaab aan la xallin karin. Najax sidii caadiga ahayd ayay laabta u jiiftay sariirteeda, horteedana shaashada kombiyuutarka ayaa taallay. Midabka buluugga iyo caddaanka ah ayay dhex mushaaxaysay. Bogga hoodo ayay gashay. Wax warbixin ah ayay ka weyday Facebookgeeda. Niyad jab ayay faraha dhaqaaqooda la yaraysay. In yar kadib ayaa fikir ku soo dhacay, oo maad eegtid bogga cambaro dheer. Qofta magaceedii muxuu ahaa horta? Haa, way heshay. Sawirro 12 xabba ah ayaa u sarreeya. Ciwaanku waa xalay iyo baashaalkii. Iyada oo waqajilsan ayay si caajisnimo leh u sii taabatay sawirradii. 5 sawir markii ay dhaaftay ayuu kii 6aad sidii dhagax lasoo tuuray wejiga ka dharbaaxay. Gidaar inay dardartay ayay u malaysay. Inta gacanta afka laga geliyey in wadnaheeda lasoo tuujinayo ayay u malaynaysay. Dhidid qabow ayaa sanka korkiisa farfadhiistay. Way u fiirsatay sawirka. Waa hoodo. Dibnaha aad u kala jiidan oo ay dhoola cadaynayso ayaa indhaheedii yareeyey. Kaamirada ayay soo eegaysaa. Agteeda waxaa taagan isaga. Waa Najax laftiisii. Najax haddii ay taagnaan lahayd, istaagga ayay ka dhici lahayd. Iminkase wax kale ayaa hoos u dhacay. Waa wadnaheedii. Indhaha ayay ku sii haysaa. Kolba way libiqsataa. Haddana way eegtaa. Sawirku inuu isbedelo ayay hubinaysaa. Balse waa isagii Najaxii ay lahayd oo haatan la jooga. Hoodo indhaheedii caddaa. Daruur ayaa haraysay. Calooshaa wareegatay. Laabtaa dhaqdhaqaaqday. Way ishayn kari weyday. Sahra waa tawcaday. Sahra oo aan waxba ogeyn ayaa aayar tiri, halow, ilaan waa qof dareen qabee. Hadalkii ay odhan lahayd ayaa ka soo bixi waayey. Najax dhuuntii ayaa u furmi weyday. Qasab ayay ku banaysay. Najax ayaa waxay tiri, naaheedhe Sahra, miyaad gashay maanta Facebookga? Sahra ma aysan ka filayn su'aasha maldahan. Haddii ay haa tiraa, dembi ayay yeelan kartaa. Maya haddii ay tiraahdana been bay sheegaysaa. Beenta ayay ku dhaqaaqday. May huun hee, kombiyuutarkii miyuu ku ag yaallaa? Ayay tiri. Dhinac intay u sii riixday ayay kadibna waxay tiri, may huunna macan ee maxaa jirana? Najax oo aan isdhiibayn ayaa sii wadatay. Naadhigihii telefoonka soo kuma hadlaysid? Haa, haddaba Facebookkaaga ka gal telefoonka. Wax baan ku tusinayaaye. Oo huuno miyaad i tiraahid keliya? Facebookga gal, isug aan galee. Ma gashay? Wax yar isug ayay tiri Sahra. Waa u wareegayaa. Waa telesoomtii cusleed ee isug. Ma gashay waayihii? Haa, iminka ayaan galay. Haye, cambaro dheertii magaceeda ku qor. Naa maxaad aragtay? Waayahay, waan ku qoray. Sawirrada ugu sarreeya ma arkaysaa? Haa, bilaayada madaxa dhuuban. Fur oo hore u soco. Alla, naakuusow ayaan arkaa. Naa igadaa waxaasoo bal hore u soco. Alla hoognay. Naatan mahoodaa. Ka sheekee harnayey. Acuudu billaah. Malaha waa iyadii afkeeda xunday. Xafladdaasi waa xalay. Oo heedhe naabalsug oo waa xirtii airborka ay isugu yeeraysay oo dhani. Miyaan garanayaaba? Ma kuwiibaa? Naa way ka buuxaan. Soo tii yarayd ee gaabneed taas maaha. Naagtu maxay ula jeedaa laakiin? Ma aanan fahmin. Wallaahi aniguba. Miyay kula soo hadashay maanta? Ayay weydiisay Najax Sahro. Ma hoodo yaa kale hee? Huunno maya, bal iminka ayaan garaaci doonaa. Maya iska dhaaf ayay tiri Najax. Ilaa ay ka soo hadasho lama hadlayno. Telefoonkii ayay hoos u dhigtay. Qaybtii ay sariirta kaga jiiftayna way soo koobtay. Waa Najaxe iyada oo jilbaha ku nabaysa beerkeeda. Dareenkii ay u qabtay Najax waxaa ka xoog batay kan ay iyadu ka heshay hoodo. Waxay dareentay in la khiyaameeyey. Way og tahay in aanu ninku meel ugu xirnayn, balse in hoodo oo qorshaha ku jirtay ee arrin nuucan ah ku dhaqaaqdo ayaa dhibaato noqotay. Waa laga dhex toosay. Qiil ayay u raadisaa sawirka. Way u weydaa. Waxba ma huwana. Haddana way gubanaysaa. Way karaysaa. Naxdintii ayaa weji kala qaadatay. Calooshii xanuunaysay ayaa bogsatay. Dareenkii nooca ahaa ayaa mid kala noqday. Caro iyo ciil ayuu isku beddelay. Saacadaha ayaa sidii daqiiqadaha u weydaaranaya ama u dhaafaya, iyaga oo gaabis ah. Su'aalaha aan jawaabaha wadan ayaa ku mudan maskaxdeeda. Hal mar ayay isrogtay intii ay jiiftay. Iyada oo aanan rabinna way gamacday. 2 saacadood kadib ayay ku toostay. Dhawaaqa telefoonka. Waa Sahra. Waxaa la yidhi, naa miyaad hurdaysaa? Hee, waan kugu soo soconnaa ayaa lagu yidhi. Adiga iyo ayay tiri Najax. Aniga iyo hoodo. Xarfaha dambe markay dhegaheeda gaareen waxay uga dhignaayeen biyo qabow oo lagu firdhiyey. Kor ayay u boodday.
orod ayay guriga dhexdiisa ka bilowday. Dhar aad u qurux badan ayay isku taagtay. Si degdeg ah wejiga ayay u rinjiyeysay. Afkeeda oo muddo xirnaa ayay qosolka usii tababartay. In aan laga dareemin sida ay tahay ayay go'aansatay. Cadceedda oo aan weli fadhiga ka kicin ayay iyadu bannaanka u soo booday. Wejiga baabuurka dhexdiisa kasoo dhool caddaynaya ayaa hal mar hor keenay xusuustii sawirkii xalay. Kun su'aalood ayay rabtay inay mar kaliya weydiiso, wayse kala guri kari weyday. Salaan ay soo qasabtay ayay si dayacan ula eegatay wejiga hoodo ee werwarku ka muuqdo. Kursiga dambe oo bannaan ayay si waafi ah u fadhiisatay. Bariido iyo hadal korka laga salaaxayo ayaa muddo lagu jiray. Waa la isku bixi waayey. Sahra ayaa go'aan qaadatay. Iyada ayaa u bilowday. Nahoodoy, waad og tahay oo 4 maalmood war lagaama heline. Warkaaga keen. Oo arrinna waad ku maqnayde, bal sidee wax kugu qabsoomeen iyo wixii ku helay inoo sheeg. Cunaha ayay sifaysay intii aysan bilaabin ka hor. Horta waa run oo arrin ayaan ku maqnaa. Weliba qorsho aan intiisa badan anigu lahaa ayaan ku soconnay. Soo waxaad garateen maaha. Najax guux ma leh. Gariirna iska ilow. Hadalka ayay dhegaysanaysaa. Hoodo ayaa sii wadatay oo tiri markii aan idinka tegay waa inagii israacnay aniga iyo tii dheerayd. Adigu dee waan maaweelinahay. In badan ayaan u sheekeeyey. Wax badan oo aan maalmaha qaar ku diidi lahaana waa runtaa uun ayaan lahaa. Adigu alxaasil badweyn ayaan dhex maqurtay. Naaga yaryar maba yaryaree, laakiinse sidii carruurtii wax u dhaqmaya ayaan dhex tegay. 3 asaasaq oo ay iyada wax isku yihiin oo qurbaha ka yimidna way jireen. Koox dhan oo ilaa 6 naagood ka kooban ayaan aniguna 7 ku noqday. Waxaa qasab igu noqotay inaan sidooda u dhaqmo. Waa dad subaxii israaca, habeenkiina saqda dhexa uun kala taga. Inta subaxii lay lahaado ayaa sidii marada guriga hortiisa laygu tuuri jiray 2 habeenimo. Aniga oo hurda ayaa haddana subaxii lay soo dul istaagaa. Waxay noqotay inaan la socdo dan ayaan ka lahayn ileene. Iyaga inaan ka mid noqdo ayay dantaasina ku jirtay. Horta sidaas ayaan idinkaga maqnaa. Sahra ayaa waxay tiri oo ma waqti aad nagu soo wacdo ayaad weyday. Wallaahi soomaan dhaaran. Haa waan waayey. Marna iyaga ayaan la joogay. Marna waan hurdayay. Xitaa telefoonkeyga 2 cisho oo isku xigta bilaa dib ayuu ahaa oo waa uu dansanaa. Laakiinse waan qirsanahay inay qalad tahay taas. Anigu xaaladeyda siday doonta ha ahaatee way ahayd inaan qoraal idin soo qoro xitaa, balse runtaa fiicane waxaan islahaa way fahmi doonaan iyaguna. Najax oo aad u aamusnayd ayaa hadal damacday. Najax waxay tiri habeen hore xageed ku maqnayd. Hoodo ayaa waxay tiri habeen hore horta naagahan aan kuu sheegayaa waa naago hawada la haysta oo noloshaba ciyaar iyo qosol uun u haysta. Hoodo ayaa waxay tiri najaxey dirac iyo xaflad waxaan ahayn kama shaqeeyaan. Iminka 3 xafladood ayaan 4 habeen ku tagay. Habeen uun ayaan bilaa xaflad ahayn. Habeenkaasna hotel ayay casho noogu waday. 2 xafladood ee hore iska caadi ayay ahaayeen. Dharka oo la isugu faanayay mooyaane. Laakiinse habeen hore Sahra ayaa waxay tiri tan habeen hore ka sheekay bal. Hoodo ayaa waxay tiri waa anigan soo wadee habeen hore naag ayaa sii dhoofaysay. Xafladda la qabtay waxaa la yidhaahdaa goodbye. Dad akhyaar ah ayaa imaanayay, rag iyo dumarba. Show dadka imaanaya Najax ayaa ku jiray. Anigu markaa ma aanan ogeyn. Xafladdii markii ay muddo socotay ayuu soo galay. Dee waa sidii gaalada la isku salsalaamay oo dhabanada la iska dhunkaday. Showkuu soogaan aan ka xaraabaysano. Dad ayaa ku daba tukada. Waa tala kala jiitayba. Isaguna ma ahan qof waalane. Si gaaban ayuu dadku u salaamayay. Markii ayaa noogu dambaysay. Muddo kadib markii ay xafladdu sii dhammaanaysay ayay cambaro dheer u yeertay. Malaha aniga ayay waxay tusinaysay sida ay isugu dhow yihiin. Hadda naagtaas waa la qabaay ogow. Najax ayaa waxay tiri tuma macambaro dheer. Hoodo ayaa waxay tiri walla iyo bille beri dhaweyd ayaa la mehersaday. Laakiinse waxaan maqlay in iyada iyo isagu ay wada sheekaysan jireen berigii hore. Adigu waxba yaanan hadal kugu daaline. Sidaas ayay xafladdii kusoo dhammaatay. Sahra ayaa waxay tiri sawirro ayaad la gasheen. Hoodo ayaa waxay tiri markii uu sii baxayay. Sahra ayaa waxay tiri laakiinse si fiican ayaad u qoslaysay. Hoodo ayaa waxay tiri alla waa inaga jabnay. Naama sidaas ayaa la iigu caroonayaa. Dhibku ma sawirkaa. Najax iyo Sahro dee ila hadla. Najax ayaa waxay tiri walaal cidna kuma caroonayso. Qof xura ayaa tahay. Cidda aad doontana waad isla sawiri kartaa. Hoodo ayaa waxay tiri najaxey dhegayso. Ninkan markii uu sii baxayay ee uu agteyda ka kacayay ayay Suleekho ku tiri. Sahra waxay tiri Suleekho waayo. Hoodo ayaa waxay tiri dee waa cambaro dheer. Iyadaa ku tiri najaxow dee sawir nala gal. Waxaa walle iyo bilaahi ah in laygu qasbay sawirka oo aanan dan ka lahayn waxaan yar ee dabada buuran. Maxaad islahaydeen ma hoodo ayaa idinka dhex kacday. Najax ayaa waxay tiri
dee maye waan fahmi weynay adigana waxba nooma aadan soo sheegin laakiinse waa caadi ilaa ninkayga maahine najax ayaa sidaas tidhi hoodo ayaa ugu jawaabtay naa wallaahi ayay iga tahan ku yidhi walaalay haddii aad rumaysanayso xaggeed ka aragteen sawirka yaa soo geliyey ayay tidhi hoodo najax ayaa waxay tidhi siiq leebal ayaa soo gelisay dee balaayadii dheerayd hoodo ayaa waxay tidhi waxaas ayay ka shaqaysaa taasna naaheedhaha naagayahow anigu midkaan yar ee dabada kuusan ma xiisaynayo oo wallay iga tahay waanad i taqaanaa najaxay oo maanta ima baranayside qorshahaynii ma sii wadanaa maxaase idin qabsoomay idinka qolkii ma la soo helay sahra ayaa waxay tidhi qolkii waa diyaar haa in aan heshiis la galno uun ayaa haray hoodo ayaa waxay tidhi weliba aniga ayaa dhiibayaa bisha koowaad lacagtiisa najax ayaa waxay tidhi naa maxaad u dhiibaysaa anigaa dhiibaye hoodo ayaa waxay tidhi alla maskiinsanidaa ma adaaba wax og naa waxaan ka yimid naago ee bahashu iska ag taaltaallo maalmahan waan ladanahay najax ayaa waxay tidhi alla maxaad wax soo aragtay hoodo ayaa waxay tidhi naa waxaasoo dhan wax baa ka horreeya markii uu miiskeena fadhiyey yarku wuxuu noo sheegay inuu xaflad casho ah qasriga madaxtooyada uu ku qabsanayo tigidho ayuu noo qaybiyey intayna meesha fadhido laba kalena waan ka soo qaaday oo waxaan ku yidhi keen guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa tigidho aan u geeyo najax ayaa waxay tidhi haye warkaasaa imaraaye sahra ayaa waxay tidhi naa waxba kuma odhane ilaahay ka yaab hoodo ayaa waxay tidhi waatan kaas ku go'aa cabitaan ay cabaysay dabadeedna wuxuu yidhi waa kee guddoomiyuhu nin buu moodayay dee waa aniga u sheegay ee ku yidhi miyaadan maqal inanta geeska afrika oo dhan laga xushay ee sidaas iyo sidaas ah walle waataan hooyaday waayaa waa u qaadan waayey xitaa waxaan u sheegay inaad isku magac tihiin oo najax lagugu magacaabo najax ayaa waxay tidhi wallaahi wax nool ayaa tahay hoodoy wax yarna waan kuu carooday iska dulqaado xafladdu waa goorma hoodo ayaa waxay tidhi dee waa caawa si weliba weyna waa inaloo sugayaa weliba khaasatan adiga lagu sugayaa sahra ayaa waxay tidhi maxaa tidhi najax ayaa waxay kaga dhex gashay waa goorma caawa ah hoodo ayaa waxay tidhi caawa 9:15 habeenimo ayaa tikidhada ku qoran degdeg ayay uga hartay iyada ayaa isku hartay waa najaxe kuwii kalena waa baxeen dareen qasan ayay qolkeedii la gashay haanteeda dareenka haddii loo fiirsado gunta hoose farxad ayaa fadhida oo aayar karkaraysa korkeeda sarana rajo ayaa ku dahaaran sidii labeenta labadaas dareen haanta waa ka bar uun dhowr kiilo oo shaki ah barkii oo walaac ah 3 rubuc oo cabsi ah iyo xoogaa yar oo quus ah intaas ayaa ka koraysa xuubka rajada ah way ku kalsoon tahay saaxiibadeed hoodo haddana wax ay rumaysato ayay garan la'dahay hadalkii ay ku lahayd ayay ku soo ceshataa kadibna way qanacdaa haddana waxay og tahay inay hoodo cid kasta hadal ku qancin karto biyuhu dhanka ay u shubmayaan inay u raacdo ayay qoondaysatay warqadan dhan walba laga xardhay ee faraheeda sida dabacsan ugu jirta ayay hoos u eegtay 9:15 oo far dahabiya ku sharaxan ayay indhaha ku nasisay xiisaha gororka ah oo ay u qabto madal aan laga aqoonin ayaa si isla eg siman ah ula kordhayay aminta ay sii eegto xarfahan dhowrka meelood ka laabma tamar saa'ida ayaa gashay meel aan laga aqoonin marka aad tegayso dhowr waxyaabood ayay ku fiican tahay mid ka mid ah ayaa ah in haddii uu lebiskaagu liito cidna aysan dankaa gelaynin oo aadan soo jiidasho lahayn inay sidii hablaha boqortooyada u lebisato go'aan ayay ku gaartay hadhow siday noqotaba adigu waxba ha la harin ayay ku tashatay sidii gumac la riday ayay sariirta ay dacal kaga fadhiday uga boodday wakhti badan ma harin waanay qorshaysay saacad waxaa iska leh musqusha oo ay iminka sii gelayso 10 daqiiqo wax ka yar dharka oo diyaar u ah ayay isku suraysaa 2 saacadoodna waa xalxaalka dambe iyo isrinjiyeynta tuwaal culays badan ayay ula kacday dhanka qolka la isku dhaco 60 daqiiqo kadib ayay ka soo baxday iyada oo qof kale u eg raad qoyan oo ay cagaheedu reebayaan ayay ku hagtay qolkeeda timo maydh ah oo aan goorahaas qalalayn ayay tuwaal kale ama shukumaan kale ku maraysaa iyada oo hadba qoorta dhinac duwaysa kor ayay u laabaysaa si ay halkaas ugu ilowdo saacadda soo socota shaqo aysan jirin cid kaga xariifsan ayay caawa si niyadsan u bilowday dhowr nafaqo oo kala kaan ah ayay midna jirka ku duugaysaa midna ka koraysiinaysaa midna labeen uga dhigaysaa sidii farshaxan qalabkiisu u dhan yahay ayay xaadda korkeeda midba gaar u raaligelinaysaa iyada oo barta ay ka dhaqaaqdo caraf udgoon kaga tegaysa ayay dhankii maryaha ama lebiskii ay xiran lahayd u dhaqaaqday armaajo weyn ayay labadeeda albaab midba mar furtay sidii inuu kaara ka soo baxayo oo kale faraheeda hore oo ay ku aamintay
xulidda maryaha ayay hoos u raacisay dharka laalaaban, iyaga oo maraba mid uga gudbaya meel ay wax ku ogaayeen ayay ku nagaadeen. Amar la siiyey ayay fuliyeen markii ay si quman u soo jiideen wixii ay hayeen. Gacmaha iyo indhaha oo wada sida ayaa sariirta cirifkeeda hoose ee bidix dul fadhiisiyey. Ma aha dhar ay weligeed hore u isticmaashay, waa hadiyad ay iyada habaryarteed uga keentay Dubai markii ay qalin jebinaysay. 5 jeer oo ay isku egta mooyaane weli lama aysan bixin. Iyada oo niyadda ku haysa cambaro dheer iyo asxaabteeda inay la kulmi doonto, ayay si qumaati ah muraayadda u hor fadhiisatay. Dhowr burush oo kala kaan ah ayay qunyar ugu salaaxday wejigeeda. Fooda hore iyo dhabanada ayay ku noqnoqotay iyada oo aan degdeg ku jirin. Muddo ayay sidaas ahayd, in kalena way sii ahayd. Ciddiyo aan aad u dhaadheerayn oo bilaa midab ah ayay tii ugu dambaysay faryarta ku xidhaysay markii ay maqashay hoonka baabuurka oo bannaanka ka yeeraya. Wax yar kadibna dhawaaqa asxaabteeda ee qolkeeda kusoo dhowaanaya ayaa xigay. Codka hoodo ayaa u soo horreeyey. Nacaaway yartii, kolley way jiiftaa. Sahra ayaa qosol ugu markhaati furtay. Kolley riyadii saddexaad ayay sii dhammaysanaysaa iminka. Way soo dhowaadeen. Sahra oo afka ku haysa naa kolley kuusow ayay ku riyoonaysaaye ayay albaabka soo riixeen. Sankooda ayaa ka dhaqso badnaa indhahooda. Caraf udgoon oo qolka dhex hurday ayaa ilaa cirbaha dhex socotay. Xubnahoodana debcisay oo hadalkii ka kala jartay. Maskaxda oo aan waxba fahmin ayay indhuhuna sixi waayeen. Jooggan sidii caadiga ahaa ka dheer. Cadar ku jira gacanteeda bidix oo fidsan ayaa meel dheer ka soo tooganayay markii ay indhahooda qabteen iyada. Hadal ayay iska waayeen. Najax oo saacad dahabi ah dhudhun ku laabaysa ayaa mar dambe ku soo tuurtay hadal ah, yaa hurda oo aad sheegayseen. Ina Mariya ayayna u raacisay iyaga oo weli sidii asnaamta qalalan. Sahra ayaa waxay tidhi wallaahi haddii aan nin ahay waan kugu boodi lahaa maanta. Hoodo ayaa iyaduna waxay tidhi naxuural caynta la sheegayo ma sidaan ayay u eg tahay talow. Huunno maadigiibaa. Najax ayaa waxay tidhi hadalka badan jara. Hoodo ayaa waxay tidhi naadii naagtu waa ina xoog sheeganaysaa. Inadeer adiga ayuu ilaahay quruxdaas ku siiyee haynoo sheegan. Najax ayaa waxay tidhi waa imise saac. Sahra ayaa waxay tidhi naadiracanna muxuu ahaa. Wallaahi in aan qaawanahay ayaan isku haystaa iminka markii aan kaagii arkay. Qurux badana wuxuu. Hoodo ayaa waxay tidhi naabal dhankaa u jeeso oo dharkan maanan arkine waanba kaa xadi lahaa. Najax ayaa waxay tidhi haye ma baxnaa. Hoodo ayaa waxay tidhi bal cadarkaas uun ii dhiib. Maya kan kale shaneelka. Najax oo hogaaminaysa ayay kaabada guriga ka soo dhaadhiceen. Baabuur ay indhaheedu garan waayeen nuuca uu yahay iyo wadihii oo dhex fadhiya ayay indhaheedu qabteen. Iyada oo aan hadal ka keenin ayay kursigeeda fadhiisatay. Qorshe ee xafladda ku geli doonto ayay asxaabteedu diyaariyeen. Iyaduna waa moog tahay. 40 daqiiqo kadib ayay ku soo hagaageen qasri magaalada ka baxsan oo uu nuurkiisu xidigaha u jawaabayo. 3 kontarool oo kala dambeeya ayay ka gudbeen markii ay magacyadooda oo sii yaalay horena loo dhigay ay ku dhawaaqeen. Qasri mataan la ah kan weyn oo garabkooda bidix ka soo eegaya ayuu waduhu ku hagaajiyey isaga oo raacaya falaaraha iftiimaya ee dhulka wadada labadeeda dhinac lagu dhigay. Taalada bartanka taala dhismaha hortiisa ayuu ku wareegay isaga oo si aan dareen kicinayn u istaagaya. Hoodo ayaa degtay. Sahra ayaa raacday. Najax oo soo siqaysa ayaa lagu yiri joog adigu. Waa maxay ayay weydiisay. Hoodo ayaa waxay tidhi horta doqonsanida huunno. Najax ayaa waxay tidhi hee maxaad leedahay. Sahra ayaa waxay tidhi ma adiga oo sidaan u dhalaalaya ayaad aayar uun iska soo gelaysaa xafladda. Waa in la ogaadaa markaad soo gelayso weliba kaligaa. Hoodo ayaa waxay tidhi walaal inankow inanta kaxeey baabuur ku wareeji ilaa inta aan kala soo hadlayno. Canjaradii aan ku dhiibayna u shid oo magaalada ku soo wareeji. Adiguna xabiibtii yarkii kuusnaa oo jooga mooyaane soo geli maysid xafladda. Markaa dib u fadhiiso ilaan anagu muusig sooma doonane. Najax oo amakaagsan ayaa albaabkii baabuurka lagu xiray. Qasrigii ayay dib uga noqotay iyada oo amarka qasab ku qaadanaysa. 30 daqiiqo ayay sii jeedeen markii uu taleefoonka wadaha soo yeeray. Wadihii ayaa soo kala jeediyey. Haddana taleefoonkeeda ayaa yeeray. Hoodo oo hoos u hadlaysa ayay ka heshay. Naaheedhe waa la wadii midkow dheh. Dii waa taqaanaa sida xafladaha loo soo galee adigu uun ha ku fin. Saacad barkeed oo kale ayay haddana u soo socdeen dhankii madaxtooyada. Lugta midig ayay iska soo horraysiisay iyada oo ciribta dheer ku kala kaxaynaysa jayda dhulka cabaysan. Diriceeda oo aan wax badan qarinayn marka laga tago caleemo cagar dahabi ah oo si farshaxanaysan oo gudban u qarinaya laabteeda dhexdeeda ilaa jilbaha inta u dhaxaysa mooyaane. Labada gacmood ayay xagga hore isugu keentay iyaga oo ku kulmaya boorsada aadka u yar ee catada ah
afar kaabadood ama jaranjaro ayay midba mar kabta saartay. Albaab jooggeeda laba jeer kor uga dheer ayay dhismaha ka gashay. Midig ayay u leexatay markiiba iyada oo raacaysa ishaarooyinka ay bixinayaan shaqaalaha asnaamta aad moodo ee dharka madmadow ku labisan. Tallaabada ayaa soo dhaweynaysa dhawaaqa ay dhankiisa u socoto. Muusig qalaad oo la naaqusay ayaa ku barxan codka ay dadku sidii shinidii ugu guuxayaan. Qosol talantaale ah ayaa labadii ilbiriqsiba mar yeeraya. Koox koox ayaa loo taagan yahay, qaarna ay u fadhiyaan meel ay ku hagaagto. Iyada oo aan garanayn ayay soo istaagtay afaafka hoolka oo ay ubaxyadu ku hareeraysan yihiin. Intii aysan waxba fahmin ayay maqashay dhawaaq ka soo yeeraya dhanka hore ee hoolka. Waa Hoodo iyo Sahra oo si farxad leh magaceeda ugu heesaya. Waa qayb qorshaha ka mid ah. Najax ayaa timid. Najax magacii yeeray ee u ekaa kii inanka madaxweynaha ayaa dadkii soo jeediyey. 200 oo indhood oo jirkooda wata ayaa mar kaliya soo eegay Najax. Naxdin ayay bowdyaha isla dhacday. Guuxii ayaa mar kaliya joogsaday. Waxay ogaatay inuu habeenkeedii yahay. Allana waa baray sida fursadaha looga faa'iideysto. Labada gacmood ee boorsada yar ku dheggan ayay tan bidix kor u soo qaaday si ay sacabkeeda oo ballaaran timaha u dul mariso, iyada oo dhafoorka bidix ka bilaabaysa kuna joojinaysa dhegta iyo qadaadka inta u dhaxaysa. Isla gacantii ayay dhaadhicisay, iyada oo far yarta ku soo qabsanaysa diraca qaybtiisa ku beegan jilibkeeda bidix, korna u soo dalacaysa in yar oo aan badnayn. Tallaabo alla baday sida loo qaado ayay ku hogaamisay jirkeedan carbisan. Dad hoos u leh qoftaan yar maxay ahayd ayay kolba laba dhaaftaa ilaa ay ku dambaysay Sahra iyo Hoodo oo dhoola caddayn aan jirin ilaa goosaha ku muujinaya sidii carabta ayaa kolba dhaban la isku dhiibay. 4 hablood oo ag taagnaa oo ay cambaro dheer ka mid tahayna xisaabta ayay ku saxday. Kuusow oo jir ahaan la jooga 4 asxaabtiisa ah oo 2 dumar yihiin ayaa indhihiisa iyo qalbigiisuba xaggan dhanka Najax u soo maqan yihiin. Inta uu isha ku soo xadayo, iyadu waxay urursanaysaa hambalyooyin dadkii maqlay shaqadeeda ay dusha uga tuurayaan. Waxay leeyihiin shaqo fiican ayaad qabatay walaal. Dumarka ayaad hormuud u tahay Najaxey. Geeska Afrika ayaad u horaysaa. Iyo in u dhiganta oo aysan garanaynin sababta ay ku mutaysatay ayaa lagu rusheeyey. Intii ay arrintaas socotay ayay Hoodo isha kala hadashay cambaro dheer. Iyaduna isaga ayay si dahsoon ugu dhawaaqday. Najax oo goorahaasba garan la ahaa si uu ugu yimaado ayaa soo dhaqaaqay, isaga oo iska dhigaya qof aan waxba arkin. Cambaro dheer ayaa waxay tidhi, Najaxow, maanta waxaan ku barayaa inantan aad isku magaca tihiin. Isaga ayaa wuxuu yidhi, maasha Allah, ma Najax ayaa lagu yidhaahdaa walaal? Najax oo hoosta ka shanqaraysa gariir dartiis ayaa intay is adkaysay u celisay, haa walaal, barasho wanaagsan. Gacan 1 nooc oo kareem ah lagu duugay ayay si dabacsan u soo fidisay. Degdeg ayuu uga qaaday. Way ogtahay inaysan urtaasi ka ba'aynin ilaa berrito. Cambaro dheer oo aan haatan wax kale looga baahnayn ayaa damacday inay xaaladda hoosteeda ku soo celiso. Cambaro waxay tidhi, inanta miyaad garanaysaa? Waa inantii toddobaadkii hore ku guulaysatay shaqadii ay dhallinyarada Afrika oo dhan u tartamayeen. Isaga oo aan indhaha iyada ka qaadin, shaqadana aan fahmin ayaa soo celiyey, wallah, shaqaduna maxay tahay? Gabadhu waxay noqotay dee guddoomiyaha COA-da ee Bariga Afrika. Haddii uu dherigiisu bilaa milix ahaa, iminka ayaa cusbo loogu daray. Markii uu maqlay magaca COA-da ayuu indhaha kor u taagay. Si toos ah ayuu iyada ugu yidhi, waaw, marwada, hambalyo ayaan leeyahay marka hore. Hoodo iyo Sahra oo sidii ay rabeen wax ugu socdaan ayaa cambaro dheer cirifka jiiday si ay isugu kaliyoobaan labadan isku magaca ah. Meel ka durugsan ayay cabitaan u doonteen, iyaga oo ka fogaaday goob ay ka maqli karaan hadalkooda. Shaqada Hoodo iyo Sahra ayaa haatan ah inay dadka ka ilaaliyaan si ay u kala bogtaan. Saaxiibadood Najax oo aysan uga baqayn in markabka loo soo xiray ay alaabteeda kala dhigto ayaa isku kala bixisay. Kuusow wixii u ekaa bariido iyo isbarasho ayaa u gudbay hadallo dhankiisa ka imaanaya iyo dhoola caddayn ay gabarsiin karto nin ay rabto oo dhankeeda ka imaanaya. Walow uu la joogo ninkii ay jeclayd oo madaxweynuhu dhalay, haddana mar kaliya jooggeeda waxba kama aysan bedelin. Kalsooni ayay dhabarka la dhiibinaysay. Xaaladda ayay maamulkeeda la wareegtay, iyada oo aamusni qosol ee marka ay doonto samaynayso, marka uu doonana ka qarinaysa. Bilaa awood ayay ka dhigtay. Buur Figteed ayay la martay. Dad waxa uu yidhaahdaba nacam oran jiray ayay ka mid noqon weyday. Iyada oo aan isagana didinaynin ayay haddana markay doonto ku adkaysaa. Markii ugu horreysay ayay dareen siisay in laga awood badnaan karo. Sahra ayaa u sheekaynaysa kooxda. Hoodo ayaa sheedda ka soo dhowraysa, iyada oo kolba candhuuf culus laqaysa.
in badan ayay eegtaa haddana way ka jeesataa si aan looga shakin mar kasta oo ay labadoodu sii fahmaan hoodo laabta ayaa sii cuslaanaysa walow ay si niyad ah isugu keentay haddana farxadda ay saaxiibteed u dareemayso wax kale ayaa weheliya ishii aragtay inay lambarada kala qorteen ayaa degdeg u qoyday dhibic ilinana soo tuurtay qof ay rabtay ayay hibaysay caawa labada najax ruuxdooda ayaa ku midowday dhul ciiro ku fadhido oo hareerahoodu qarsoon yihiin labadooda oo keliya ayaa isu muuqda oo isku qoslaya bartooda kama aysan dhaqaaqin hawada sare haddii aad eegtana kuwa gacmaha is haysta ee isla duulayaa waa iyaga fure ay la wareegi jirtay ayay waxay heshay qufulkiisii daruur farxada ayaa kaligeed u da'aysa isagana sidii jeegaanta ayuu dusheeda hareeyey xaalad ay si kedis ah u gashay ayay rabtaa inaysan ka bixin hadalka ayaan u baahnayn in la qasbo dibnaha ay sida xakamaysan u kala jiidayso ayay shidaal uga dhigaysaa haasaawe aan faragelin kale u baahnayn mawduucyada ay ka hadlayaan ayaa ka kooban wax kasta dhan kasta oo ay isula kacaan haddii ay ku midaysan yihiin iyo haddii kaleba isku soo dhowaansho ayuu abuuraa weli hadal ay sidan u dhedhensato horay uma soo arkin sidaasoo ay tahay waxay iska jiraysaa inay u ekaato kumanaanka hablood ee isaga daba orda waxay hoos u leedahay nasiib ayaad leedahay haddii aad hesho isaga ayaa u eg qof maqlay codkeedaas hoose oo rumaystay gabar isaga hadal ku gujinaysa mid aan isaga wax walba ku raacsanayn oo cod gaara leh iyo inay wax badan ka qarsoon yihiin ayuu ogaaday inta uu ka bartay caawa ayaa ah dharkii koowaad ceel uu wadaanta kula noqon doono habeenkii markii ay hooyatay ayay jiifka ku bandhaysay dareeno badan oo markii ay isaga la joogtay daah ka saarnaa ayaa iminka soo xaadiray dhanka midig ayay u jiiftaa jilbahana laabta ayay ku haysaa marka ay indho qoslaayo hawada bannaan ku ilowday afkeeda ayaa dhoolacdeen ku turjumaya xusuusta ay maskaxdeedu hadba baal rogayso hadalladiisii ayay dib ugu noqotay maya dhaqdhaqaaqiisii indhihiisii inay hurdaan u eg ayay hadba mid eegaysaa libiqsigii caajiska ku jiray ayaa dareenkeeda xadaya dibintii hoose ee uu kolba muudsanayay ayay la jirrocotay marka ay hadal dhammacdo sidii uu u aamusayay ayaa garaaca wadnaheeda kordhisay marka ay soo xasuusato sidii ay hadalku u adkaynaysay ayay qosol la jeesataa dhankeeda marka uu soo jeesto sidii loo saaqayay ayaa haddana loogu duulayaa jirkeeda ayaa xubinba gaarkeeda loola hadlay isaguna u qanciyey lambarkiisii ayay hoos u eegtay waa sax qiyaastii inuu berrito la soo xidhiidho ayay rajaynaysaa si kastaba ha u dhacdee iyaduna ma rabto inay kaga horayso sida ay noqoto waa loo joogaa dhanka kale ee magaalada gabardhigeeda ah oo hoodo loogu yeero ayaa sidaas si la mid ah u fikirayso balse hal mid ayay ku kala duwan yihiin afka hoodo waa uu xiran yahay indhaheeduna waa ay qoyan yihiin calool xanuun ee kala timid xafladdii ayaa hadda ku fiday dareen aysan rabin in la ogaado ayay hadda la galgalanaysaa culays aysan ka caban karin ayaa ku raran waxaysan cidna la wadaagi karin ayaa cidlo ka helay habeenka oo ku dheeraaday barkinta oo aan lahayn meel fiyow qalbi qayb maqan tahay ayay hurdo qariir ah aakhirkii ka batay guri saddexaad oo magaalada bartankeeda ah sahra ayaa xisaabo la kadeedan waxay ahayd qofka keliya oo aan dareenkeedu hagaynin caawa qorshaha ayay hoodo la waday intii hore markii hoodo la daaray ayay keli ku noqotay hablihii ay sheekada beenta ah kaga jeedinaysay najax indhaheeda oo ahaa kuwo aad u shaqaynayay ayay kula socotay haasaawaha labada najax intii aysan dhanka hoodo soo eegin ka hor candhuufta ayaa isku taagtay markii ay indhaheedu qabteen hoodo oo ilmada hoos u bi'inaysa inay farxad la ilmaynayso ayay iska hubisay inaysan sidaas ahayn ayay ka garatay ilinta dhaadheer oo ay qari isleedahay waxba waa ay fahmi weyday in sheekada najax iyo dareenka hoodo ay xiriir leeyihiin way garatay hawsha ay wadda owgeed ayay waxba weydiin kari weyday waxay go'aansatay inay iska dhigto qof aan waxba u jeedin xisaabtaas xiritaankeeda ayay hadda sariirta dusheeda ku walaaqaysaa hal ee hal u geysay ayaa 11 ku noqonaya waagu inta uu ka dilaacayo ayay raagsatay saddex dareen oo kala kaan ah ayay habeenka ku sagootiyeen qorraxduna ugu soo baxday waaga oo ka qurux badan kuwii soo maray ayaa u horbariyay najax iyada oo baala leh ayay ka duushay jiifka hoodo weli qorraxdu dhankeeda kama soo bixin weji uu rinjigii xalay iyo qoyaankii ay kun midab u sameeyeen timo geed mara ah u eg iyo cago meyd ah ayay la jiiftaa bartii xalay ay seexatay sahra oo qorraxda ka hor toostay ayaa dhankii hoodo u soo xarka xiratay dhexda ay laba wiil oo kilya ah kasii qaaday si dhuumasho ah ayay qolkii hoodo u soo gashay
hoodo oo maqlaysa shanqarta ayaa ka wehsanaysa inay kor u eegto qofkan soo galay. Maryo sariirta dhinaceeda warnaa ayay sidaas isaga riixday inta aysan salka si taxadar leh u saarin furaashka sariirta. Hoodo oo isha bidix furtay ayaa aragtay qofka dul fadhiya. Waxay tiri, keliyihii aad jeclayd ayaan kuu keenay. Maalmaha qaar sariirta ayay ka boodi lahayd farxad darteed, maantase baarka isha xataa ma dhaqaaqin. Sahra ayaa ka dhigatay in loo jawaabay oo sii wadatay hadalkeeda qabow. Basbaasna waan kuugu soo daray weliba miyaadan urinaynin. Indhaha hoodo ee xiran ayaa midna barkimada hoos ilin ugu mudday, midna sanka korkiisa dul cararsiisay. Sahra ayaa gacanteeda saartay garabka hoodo, iyada oo aan hadal ayay sii waday dhanka wejigeeda, iyada oo suulka si degan ugu masaxaysa raadka qoyan ee ilintu ay reebtay. Aamusni ayay timaha ugu salaaxday 3 jeer. Hoodo ayaa labadeeda sacab degdeg ugu qaljisay, dhabanadeeda korna u fadhiisatay mar kaliya. Liin dhanaan miyaad soo raacisay? Ayay tiri. Waatan jeexan dhan ayaa kugu jira. Ma rootiga ayaad rabtaa mise canjeerada? Intee cunaha sifaysay ayay raacisay rootiga. Yaad ka soo qaaday? Ayay tiri. Kii dhawaa? Ayay tiri. Ma macana miyaa? Waxaas ma shaah baa? Maya, waa bun kii aad jeclayd. Arrintii xalay miraheedu waa qayriin, in la goosto lama rabo. Sheeko maqaayadaha magaalada iyo sida ay u kala quraac macaan yihiin ayaa la bilaabay. Bunka iyo noocyadiisa ayaa la qaada dhigay. Codka ayaa si fiican uga soo baxay hoodo, calooshana waa loo tiiriyey. Intaas wixii ka dambeeyana Sahro ayaa dhar u soo saartay. Bannaanka inay u saarto qolkan ilmeynayana ay ka kaxayso ayay rabtaa. Sidaas ayay yeeshay. Iyada oo jiidaysa ayay baabuurka saartay. Magaalada ayay dhinac uga saartay. Baabuurka ayay ka dejisay dhagax weyn oo ay ku fadhiisan jireen saddexdooda ayay labo sal saareen. Wejiga hoodo waxaa si fudud ugu ciyaaraysa shalmadda ay leyrtu ku dharbaaxayso. Indhaha ayaa iyaguna ka gambanaya indhaha Sahra. Way fahamtay waxa soo socda. Hoodo intaan su'aasha la weydiin ayay jawaab sii bilowday. Waxay tiri, sow ma garanaysid maalmihii dhoweyd ee aan idinka maqnaa? Sahra ayaa tiri, haa, xafladdii aan tagnay habeenkii. Maalintii ay Najax soo degtay ayuu inankaani yimid. Wax badan ma uusan joogin, laakiinse bahashii ayaa iskaanya bartay. Anigu markaas qorshihii aan dejinay ayaan fulintiisa u socday oo Ilaahay igu ogyahay. Haye, ayay tiri Sahra oo ka koobinaysa. Inankii halkaas ayaan isku baranay. Ma garanayo waxa igu dhacay, malaha waa hadalkiisii. Waan isku dardarsoomay uun. In yar ayuu ila hadlay. Waxaan bis arkay aniga oo daldalmaya. Miiskeygii ayuu soo fadhiistay, weliba hortayda. Waan iska soo horjeednay. Waana qof aad isbaranaysaan iminka oo sheekada waad ka dhegaysanaysaa. Way aamustay hoodo, faraha ayay hoos u egtay. Naqas culus ayay cantuugtay. Intii inka sii badanna waa ay soo tuftay. Hadalkeedii ayay sii wadatay. Waxay tiri, anigu waan iskala garan waayey oo waan ka jeesan waayey. Si kasta oo aan isu qabto, si kasta oo aan isu xakameeyo, si kasta oo aan Najax soo xasuusto, wax ka sii weyn ayay watay. Muddo ayuu nala joogay, markii dambena waa naga tegay. Ma intaas uunbaa? Ayay tiri Sahra. Maalintii dambe ayuu haddana soo noqday. Anigu waxaan u haystaa in aan kaligay sidaan dareemayo, ilaan isagana waa la sitaa. Afdheerideeda anigana hadalkaygii ayaa saameeyey malaha. Inankii markii uu soo noqday, dhankii aan joogay waa kan u soo cararay. Waa 3 cisho ka hor uun. Maalintaas ayaan dareemay in isagana la sito. Waan u qaadan waayey. Dee qof la hadlayso, qof ay xiiseynayso ayaan ahay. Si caadiya ayaan habeenkaasna u sheekaysanaynay. Habeenkii sidii markii aan ku kala tagnay ayuu maalintii xigtay isoo wacay. Waa daraade. Haye, kuye, xalay oo dhan adaan kaa fikirayay. Maye, ayaan idhi. Walle iyo bille, ayuu yidhi. Waa inagaa ba'nay. Haye, ayay tiri Sahra oo hadalka ka guraysa. Anna waan u soo gaabiyey hadalkoo waxaan ku yidhi, huuno ha iga fikirin, waan doonanahee. Dee miyuusan in yar kadib jarin khadka. Haye, xalay ayaan is aragnay markaa oo salaanta ima uusan dhaafin. Waa adigii arkayay. Marka waa sidaa. Ilaan xalay bilaash ma ooyeynin. Xalay goorma? Ayay tiri hoodo. Dee xafladda, ayay tiri Sahra. Dee inaanan ku arkaynin miyaad moodaysay? Hoodo ayaa waxay tiri, adigana indhadheerida horta. Wallaahi ma rabo inaan Najax farxaddeeda lumiyo. Anigana sidaan farxaddeedii u soo ceshadaa haddaba. Miyaad rabtaa inaad u sheegto? Ma ogi, ayay tiri hoodo. Ma garanayo wallaahi. Bal ina mari aanu tagnee. Daawadayaal, sheekada Najax ee uu qoray Ismaaciil Cabdulaahi Ubax oo aan ka soo qaadanay buugga sheekooyinka ee Isleeg Isiseegan. Halkaas ay inoo joogto qaybtan. La soco qaybta xigta. Nabadey.